barnaamijkan guud ahaantiisa waxa aan ku soo qaadan doonnaa guulihii ay gaareen Man City iyo Chelsea labadii boqorad ee horyaalka Premier League iyo tartanka horyaalada Yurub. fariintii taageerayaasha Liverpool uu u soo diray Jota xulka wararka suuqa ayaan ka maqnaan doonin iyo dalabyada furitaanka oo ay ka gudbinayaan City iyo Liverpool, Solnigas iyo Jack Grealish. go'aanka Pogba ee United oo isagana la ogaaday kuwa iyo kuwa kale ayaan ku turxaan bixin doonaa inta uu hawada ka baxayo. balse marka hore ha naga iloobin inaad like saarto muuqaalkan adigoo la wadaagaya saaxiibada. haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow qalbi furan. mahadsani. boqoradda noqotay horyaalnimada Yurub ee Chelsea weli waxa ayna baraysaa sida ay u tahay maliicdadii qaaradweynta Yurub. waxaana mar kale guul qaali ah oo weliba qaboojisay qalbiga mucaashaqiintooda ay ka soo hooyeen kulan noqonayay isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub kooxda Bournemouth oo la timid goolkii hore isla daqiiqadii 66. hase yeeshee kooxda Tuchel oo aan isdhigan ayaa si darandoori ah iyadana waxa ay u dhalisay ilaa iyo 2 gool. waxaana ay ka yimideen wiilasha hadda isbaraya adduunkan ee Armando Broja iyo weliba Ogbo. sida ay ku socoto kooxda Thomas Tuchel marka loo fiiriyana kulamada isku diyaarinta ee xilli ciyaareedka cusub waxa ay damaanad qaadaysaa inay tahay koox laga filan karo ku guulaysiga koobab waaweyn iyo in isagaba uu ka soo bixi doono mas'uuliyadda dusha u saaran xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Chelsea uu u madax bannaan yahay. kooxda haysata taajka boqortinimada ee horyaalka Premier League iyadana ma noqon mid ku kuftay tijaabadeedii. waxa ayna dhulka u dhigtay banooniga kooxda Preston. sida ay ula ciyaartay ayaana ahayd kuwa ay ku riyaaqeen jamaahiirta jilbaysan ee City. markii ay ku qanceen hiba ciyaareedkooda waxa ay siyaalaysteen haddii kooxdooda lagu soo kordhiyo Grealish iyo Harry Kane in ay noqon doonaan kuwa u dabaaldegi doona dhagacadaha qaaradweynta Yurub ama Champions League. labada gool ee guusha siisayna Man City waxa ay ka kala yimideen Riyad Mahrez iyo Samuel Idusi. nabar aan daawo lahayn ayay ku noqotay taageerayaasha Manchester United in geesi tol waayay uu noqday il capitano Harry Maguire. keligiina wuxuu awoodi waayay inuu dusha u rito mashaqada ka haysatay xagga difaaca macallimu Oli. Victor Lindelof waxa uu noqday fadhiid gabay kaalintii loo igmaday halka Eric Bailly isna uu isku bedelay dhaawac u joog. labadaasi dhibaato oo isbiirsatay waxay gabi ahaanba meesha ka tuurtay hankii horyaalnimada ee Manchester United. balse hadda waxa ay leeyihiin waa bishaara iyo bilqayr kadib markii si toosa ay ugu guulaysteen saxiixa boqorkii koobabka ee mundiyaalka dunidana kula soo guulaystay qaranka Faransiiska ee Raphael Varane. reer Real Madrid dhankooda waxa ay aad ugu riyaaqsan yihiin guusha weyn oo ay ka soo hooyeen xagga suuqa. waxaana sharaf iyo cizaba ugu filan in ciyaariyaan qandaraaskiisa uu ka heersan yahay 11 bilood in 50 milyan ay ku iibiyaan iyadoo la wada og yahay xaaladda dhaqaale ee haysata waqti xaadirkan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. 28 jirkan wuxuu noqday ciyaartooyga afaraad ee abid ugu qaalisan isla markaana ay iibiso kooxda ka dhisan caasimadda Spain. Cristiano Ronaldo oo 2018 Juventus ay ku iibsatay 105 milyan oo euro ayaana ah ciyaaryahanka abid ugu qaalisan kooxdan. waxaana labaad ku jira Alvaro Morata oo 80 milyan ay ku qaadatay Chelsea 2017 halka Angel Di Maria isna Manchester United uu ugu biiray 2014 75 milyan. afaraadse waxaa noqonaya Fran oo United ay ka bixisay ilaa iyo 50 milyan. Man City dhankeeda waxa ay dadaal iyo waqtiba ay ku bixinaysaa sidii ay u gudbin lahayd dalabkii furitaanka oo ay ku doonaysay weeraryahanka kooxda Aston Villa ee Jack Grealish kaasi oo ay u diyaarisay adduun lacageed gaaraya 75 milyan.
inkastoo dalabkan uu sidoo kale noqon doono mid saamayn leh haddana kooxda Aston Villa sida iska cad kuma iloobi doonto hanadkani ku soo hirqaaday istaadiyaha Villa Park wax ka yar 100 milyan. Grealish waxa uu noqonayaa bartilmaameed waqti dheer oo aad ay u dabaruclaynaysay Man City waxaana ay aaminsan yihiin xitaa taageerayaashooda haddii gacanta ay ku soo dhigaan in qayb libax leh uu ka qaadan doono hankooda horyaalnimada qaaradda Yurub. Liverpool lankeedana waxa ay wararka tilmaamayaan in dalab cusub ay ka gudbinayso laacibka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez. Liverpool 26 jirkan waxa ay doonaysaa in ay ku xoojiso awoodooda khadka dhexe iyagoona ka dhigan kara saxiixoodii labaad ee suuqa xagaa'igan. Wargeyska Ice waxa uu sheegayaa in Liverpool Saul ay ku doonayso in ay ku ilowdo Wijnaldum kaasi oo si bilaasha kaga dhaqaaqay gobolka Merseyside kuna biiray PSG. Wararka haatan waxa ay cadaynayaan in Liverpool ay diyaar u tahay in madaxa Saul Niguez ay dulligi doonto adduun lacageed gaaraya 41 milyan. ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba isna wuxuu sugi la'yahay ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka 2022 waxaana go'aankii ugu dambeeyay uu ka gaari doonaa markaasi mustaqbalkiisa. 28 jirkan suuqa xagaa'igan waxa uu waalanaysa Paris Saint-Germain iyagoo diyaarinaya dalab lacageed oo gaaraya 45 milyan. Pogba waxa uu doonayaa inuu sii wado fursadihiisa ilaa iyo inta qandaraaskiisa uu ka dhacayo wuxuuna isaga qudhiisa aad u xiisaynaya ka mid noqoshada kooxda caasimadda Spain ee Real. taxliiliyaha xagga suuqa ee Fabrizio Romano isna wuxuu cadeeyay in Liverpool marnaba aysan dalab rasmi ah ka gudbin Federico Chiesa inkastoo ay jiraan warar xan ah oo ku qotama inay aad u doonayso usoo weecashada laacibkan ee xagga iyo istaadiyaha Anfield. guddiga Liverpool iyagaba waa ay ogyihiin waa sida uu qabo Fabrizio Romano go'aanka cad oo ay ka taagan tahay Juventus Chiesa yare waxaana loo arkaa inuu yahay lama taabtaha kooxda ka dhisan magaalada Turin. Bayern Munich ayaa sidoo kale ka warqabta iyadana go'aankan waxaana qayb ay ka tahay kooxaha dusha sare ka eegaya. Newcastle lankeeda waxay doonaysaa inay cusboonaysiiso ololaha baaxadda weyn oo ay ku sii haysanayso Joe Willock. Willock wuxuu wacdara ka dhigay istaadiyaha St James Park xilli ciyaareedkii hore laakiin waxa ay haatan isku dayayaan in ay iska sii haystaan maadaama uu noqday laacib ka soo baxay kaalintii loo igmaday. wuxuu noqday mid ka mid ah fahimada ugu wanaagsan ee Newcastle waxaana uu gaarsiiyay guulo waaweyn oo 1 iyo 2 aan lagu soo koobi karin. hase yeeshee Arsenal lankeeda ma doonayso in laacibkan si dhib yar uu gacantooda kaga dhaco. laacibka weerarka ugu ciyaara Liverpool ee Diogo Jota isna wuxuu saaca ka qaaday inuu diyaar u yahay bilowga xilli ciyaareedka cusub ee kooxda Liverpool waliba halkaasi uu nafsadiisa ku muujin doono. Jota ayaa qabyaraad fiican soo bandhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee gobolka Merseyside inkastoo dhaawacyo uu ku seegay kulamo badan. xidigan oo arrintaasi ka hadlayay ayaana yiri hagaag taasi ma ahayn wixii aan doonayay laakiin waxaan helay nasasho fiican haatanna waxaan diyaar u ahay inaan bilowga xilli ciyaareedka cusub ku muujiyo nafsadayda. waxaan ku jiraa tababarka oradka waxaan isku diyaarinayaa inaan ku biiro kooxda inteeda kale waxaana dareemayaa fiicnaan. waa markii ugu horeysay ee aan Liverpool la qaato isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub wuxuu noqon doonaa xilli ciyaareedkii labaad wali waa aan baranayaa sida aan kooxda ula shaqayn lahaa laakiin diyaar ayaan u ahay ayuu sii raaciyay hadalkiisa Diogo Jota. Jota wuxuu qayb ka noqday ciyaartoyda ay sida weyn ugu raaxaystaan qab ciyaareedyadooda taageerayaasha Liverpool waana uu soo jiitay iyadoo lagu xasuusan karo wixii uu ku dhigay Arsenal iyadoo joogta Emirates Stadium xilli ciyaareedkii dhowaan albaabada loo soo xiray. waad ku mahadsan tahay
haddii aad daawanaysay barnaamijkan ilaa iyo dhammaadkiisa waxaan ahay maxamed cabdirasaaq tolman.